ورحمة الله وبركاته دنيا قعلديدا waxaan horta uga baryaa in share iyo comment ay dhahdaan gabdhaha ay u furaan dabatana muuqaalada sida inoogu qurux bato iyo wararka hadda aan helin kareyno inaanu ka hadalno lascaanood hadda waxa ka jira dhibaatooyin iyo caqabado burbur u geystay caasimadda lascaanood lisan marka way aragnimada hadda madaxweyne Biixi oo hadda ka filayo dunida hadda qayladhaanta dartay gargaarka bini'aadanimo ama way aragnimada waxaan oran karnaa arin caqabad ku ah dunida gacaladeeda iyo nolosha oo barakac noqotay oo ay dadka barakaceen marka aniga Xuseen Mandela markaan ahay lisan waxaan oran karaa dadkan ma ogtahay hore loo barakaciyay ee wadanka madaafiic iyo lagu garaacay qoryo waaweyn oo hubka dananduriga u dhaca arrimahaas oo dhan waxay ka hor imanayaan amniga lascaanood haddii aan xal waarta loo helin waxay caqabado ku noqonaysaa xukuumadda ka talisa magaalada Hargeysa ee loo magacaabo aslam marka waxa weeyaan aniga waxaan ummadda Soomaaliyeed ugu baaqayaa iyo inta dunida gacaladeeda kala joogta ee iga daawanaysa inaan anigu ina Biixi aan madduci ku ahay oo lisan oo aanu dictatornimadii iyo Maxamed Siyaad Barre warkii laga tagay uu dib haddana u soo dhiganayo marka aanu waxaan hubaa inaanay dhibaato ahayn dadkaas oo inta la barakaciyo madaafiic la dhaco haddana la ilaahdo waxaan inay golon nabada oo gudasha nabadaaban inay saartay odayaasha garaadada iyo salaadinta lascaanood salaan halayga gaarsiiyo fariintaasi waxay ka timid afayeen Xuseen Mandela oo lisan way aragnimo badan iyo xog badan ka haysta dadka Soomaaliyeed waxaan aaminsanahay dadka in la gumaado oo la laayana diinta iyo islaamnimadaba labadaba way ka baxsan tahay laguma tilmaami karo yuhuud laguma tilmaami karo gaalnimo laguma tilmaami karo muslimnimo taasi waxay xaqiiq ay u dhigaysaa qof walba oo talaabo iyo tusaale ka dhanka ah ummadda Soomaaliyeed ina maalin walba qumac iyo rasaas lagu dulaayo aad ugu xun tahay dunida hadda 7kan 23ga waxa dunida aakhir 7 dib loogu gali karaa caqabadaha mar walba soo hareysan ee jira ee durufaysan ee ama maalin walba lagu leynayo dadka lascaanood ee lagu gumaadayo labada ciidanka Soomaaliland hadeynay furmaha ka bixin oo ay goobahoogii ku noqon dagaal ka weyn oo ka dhanka ah Somaliland ayaa dib loogu qaadi karaa marka lisan iyadoo taxaddi iyo duruufahaasi ay ka jiraan haddana talaabo labaad qaada ma noqonayso marka waan salaamaya dadka Soomaaliyeed fariimahani waa fariimo isku soo daba dhacay doona aan ka hadli doono lascaanood iyo dhibaatooyinkayga iyo caqabadahayga anigu ismalihi caanimadaydu inay u gaadho dad inaad ku dhaldhalso nafa xasha lillah waxaan ka ahay dadka Soomaaliyeed inaad duruufaha iyo danta aan la qabo xabadana laga daayo garaadadu ay wala fadhiistaan la wala tashado miska wala hadalka la isku yimaado haddii kalena dhibaato ka weyn baa dhici doonta insha Allah leek saara kumati saara kambaleedka fura barnaamijkan hala sii share garayo xaqiisana hala siiyo